tagaan way si soo sawiraan gabadhii ajnabiyadda ahayd ayuu telefoonkiisa gashaday wiilkii ajnabiga ahay ayaa telefoonka gashaday qofuu daawanaya ay waa dhilay iyo dhilay waa dhiloodhin ha loo sheego waa dhiloodhin Sheekh Cabdiraxmaan Axmed Roble Allah barakeeye wuxuu noo cadeeyay xaqa wax qaldan ma uusan noo sheegin balse dadka xumaanta ayaga ku jiro ayaa waxa ay u bedeleen ama ay raadiyeen dhaliil dadkaasna waxa kamid ahay gabadhan hadda fadeexada ku jirto oo la yiraahdo Safiya Tusmo oo waagaas si jees erayadan u tiri sheekhan maxaadiraynaya le naagta nin daawata waa dhilo ninka naagta waa dhilay naasada walaha maxay Safiya dhilay mu haray reloaded dadkan reloadedka ah nimankii naagaha dadka daawada waa reloaded saas moodo reloaded ma aran karo anyway isaga Safiya Tusmo waxaan u maleynayaa meeshii laga raacay meeshan ayay ahayd balse wax kasta waa qadar laakiin waxa loo baahan yahay markii ay culimadu waxyaabahan amal ka hadlaan in aanan lagu jeejeesin in aanan xoo ahay diinta macnaha ciyaar laga dhigin Sheekh Cabdiraxmaan wuxuu ka hadlay wax jira oo xaqiiqo ah ayadana hadda ku dhacay marka waxaas amal looma baahna qofku waa in uu ka digtoonaada in culimada uu afka la galo si asagana ceebahan iyo wax lamida uusan ku dhicin maanta hadda waxay maraysaa in ay sidan ku calaacasho I don't know what to do Somalia I don't know waxaan dalabsaday ilaa hadda nolosheedii ma garanayo qofaan dhibay waxaan ku hadlo ma garanayo hooyaan ahay ubadkaygii baa daawanaya waxaan ilaa saakay soo garaacay walaal baan leeyahay wiilal baan la dhashay wiilal baan dhalay macnaha waxa weeyaan waxyaalo waxa jira tuu private oo rabin inay maxaan ku dhahdaa your own child inuu arko iyo walaalka hooyada dhashay inuu arko aanad rabin ayaa jira wallahi waa wax aad looga xumaado oo aadna looga naxo waxa ku dhacay gabadhan oo waliba ah maamo Soomaaliyeed waan ka xumahay in fadeexad intaas la eg u geystaan dad sheeganaya magac Soomaaliyeed sheeganaya muslimnimo waa arin aad u foolxun balse waxa loo baahan yahay gabdhaha Soomaaliyeed in ay diintooda ku dhaganaadaan ay iska ilaaliyaan waxyaabaha dhaawici kara diintooda diintu ayada ku ilaalinaysa ayada sharaftaada dhowraysa marka waxa loo baahan yahay in aad diintiina ku dhaganaataan si bahalada iyo cayayaanka aad uga xijaabataan akhyaarey waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh